guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa calaamiyay doorashada 8 xubnood oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay Dhuusamareeb kuwaas oo qaarkood loolan adag ugu jiro markii loo fiiriyo dhinacyada ku tartamaya kuraasta la shaaciyay waxaa kamid ah 147 oo kursiga uu ku fadhiyo Maha Salaad kaas oo hadda ay raadinayaan ilaa iyo 10 musharax oo kamid ah kuraasta sida weyn isha loogu wada hayo 14 bishan Febraayo ayaa doorashada kuraastaas loo qorsheeyay in ay ka dhacdo Dhuusamareeb ayna xogaha aan helayno sheegayaan in ay aad u yartahay rajada guush kursigaas ay ka qabaan musharaxiin uu ku jiro Cali Yari Cali oo aad ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qorqor ayaa la sheegay in hadda uu aad uga fikirayo sidii uu maareyn lahaa tartanka kursigaas iyadoo xogaha qaar ay tilmaameen in macquul ay tahay in Maha Salaad loo xiro kursigaas Farmaajo Fahad Yaasiin Laftigaran ayaa la sheegay in maalmo ka hor Axmed Qorqor ay kala hadleen cidda ay tahay in la siiyo kursigaas balse Qorqor uu diiday in kursiga 147 tartankiisa laga reebo Maha Salaad musharaxiinta kale ee kursigaas oo badankood ku daabacan ama jiranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hadda ka baqay in tartanka laga reebo oo Axmed Qorqor uu kursigaas u xiro Maha Salaad kooxda kursigan isku haysata Maha Salaad waxay wadaan abaabul warqad ay soo midaysiin oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in uu gacan ka hadal dhici doono haddii la isku dayo in kursigaas loo xiro ama loogu xoogo musharax gaar ah ay ula jeedeen Maha Salaad kursigan waa mid kamid ah loolanka ugu adag ee yaala Galmudug Qorqor iyo Maha Salaad ayaa si weyn isugu soo dhawa intii uu socdo dagaalkii Gurceel markaas oo Maha Salaad si buuxda u garab istaagay qorshihii madaxweynaha Galmudug haddii kursigan uu mar kale ku guuleysto Maha Salaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas waxa uu ku way doonaa cod sidoo kale saaxiibkiisa Cali Yari Cali waxa uu ku weyn doonaa kursi arrinta cajiibka waxay tahay in garabka madaxweyne Farmaajo Bilkoor la saadaalinay in si sahlan ay ku qaadan doonaan kursiga Maha Salaad ee 147 hadda waxay ku borortamayaan inay tartamaan oo qof gaar ah aan loo xirin kursigaas